والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان وحو قارو ياهي dadka dibadda iyo kuwa gudahaba dhab ahaantii danaynaya wadada gaalkacyo hobyo danaynaya inay wadadaasi dhisanto ayaan la hadlaynaa maanta waa dhaqaaqnay sidaad arkayseenba waa anbabixi gob oo u anbabaxaya halkii goobtii shaqadu ka bilaaban lahayd oo ah wisil qof walba odayaasha kamid ah dhinacyada taagan eray codsiya ayuu soo jeedinayaa dadka dibadda dadka gudaha taageerayaasha gob oo ah annagu dhaqaaqnay waxtarmaadkii baa la idinka rabaa ilaa wadadaasi oo biyo gaarto ma cid laga maarmayaa ma jirto qof walba sidoo uu qayb qaadan lahaa maskax iyo maal iyo muruq waa loo baahan yahay marna laga maarmo ha yaraato ha badnaato $1 ha ahaato $0.5 ha ahaato ha ka badnaato wadadaasi wax walba qof walba u baahanta walaalaha ay dhageysanayay hadda meesha taagan laftigooda kaalintiina inaad ka qaadataan waa laga maarmaan waa in la idin baahan yahay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. xilli wadayaasha gaadiidka iyo qabaha kala duwan ee bulshada dhibaatooyin weyn ay ku qabaan isticmaalka wadada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo Hobyo oo inta badan ah kuwa bacad xiray iyo kuwa burbursan isla markaana tan iyo dawladii dhexe ee Soomaaliya aysan helin wax dayactir ah marka laga reebo isku dayo kala duwan oo ay sameeyeen bulshooyin degan halka ay wadadu marto markii la waayay dawladii hay'ad u istaagtay dhismaha wadadaasi ayaa waxa bulshada Galmudug ka soo dhaxbaxay guddi magaciisa loo soo gaabiyay goob kuwaas oo u istaagay dhismaha wadadaasi oo marar kala duwan ay u istaageen bulshooyin kala duwan balse markii dambe u socon weysay rajadooda balse guddigan ayaa sheegay inay ka go'an tahay isku tashiga ay sameeyeen bulshada reer Galmudug guddigan ay magaciisa loo soo gaabiyay goob ayaa bilaabay inay la kulmaan bulshada qabaheeda kala duwan si ay uga dhaadhiciyaan ka qaybgalka mashruucan lagu dhisiyo wadada isku xirta Gaalkacyo Hobyo Umar Salaad oo ka tirsan guddigan isxil qaamay ayaa ka warmay mustaqbalka dhow waxay rajadoodu tahay halkan waxa ku qoran calaamada fiirish calaamadaas waxa weeye qorax soo baxday oo dhulka iftiiminaysa goor barqa kitaab quraan oo hoosteeda mutaqaana ku sawiran gacanta xagga xigta marka wax dejinaya oo wiishash leh gacanta xagga daarada reer iyo cagaaran labada gacmoodna waxay hayaan waa dadkii halkaas beeshu hayaan beeshu waa hayaan halkaas hayaan dadku
nolol nooga horeysa naaskii dhaqaale nololeed ummadda taro ay meel ku noolaan lahayd waa dekedaan laga xiray qof walba shaqo helaya qof walba xushar noqonaya qof walba carruurta waxbarasho helaysa badda wadan furan ilaahay mooyaane ciddan buu aan u baahanahay lama arko dhulkuna markii la dhiso dadka oo dhan muslimiin gaar waa la imaanaya badrool buu leeyahay qaar ka mid ah guddiga ku howlan dhismaha wadada Hobyo ee magaalada Gaalkacyo ayaa ka warbixiyay halka ay marayso dhismaha wadadaasi oo ay hormuud ka ahaayeen ololaheeda dhismaha wadadani oo kolkii hore laga unkay magaalada Gaalkacyo ayaa wajigii labaad laga bilaabay magaalada Wasiilo hoos tagta degmada Hobyo gudoomiyaha guddiga gacanta ku haya dhismaha wadada xiriirisa Hobyo iyo Gaalkacyo Cabdulqaadir Maxamed Shirwac ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ay u maamulaan dhismaha wadadaasi 60 kiiloomitir ee Wasiilo iyo Hobyo u dhaxaysa waxaan eebbe ka baryaynaa in ilaahay noo fududeeyo waxaan mahadda eebbe kadib u mahadcelinayaa walaalaha gacanta ka geystay rag iyo dumarba leh ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba jooga una sheegaynaa oo ay markhaati ka noqon doonaan marka ay daawadaan in hawshii bilaabatay ee in badan lahaayeen maxaa loo bilaabi waayey waa barbarkay ka baxdaa bakayla qaleen ama bakayla galeen qof walba waxaa laga rabaa kaalintii uu ka qaadan lahaa inuu ka qaato walaalihii horey ugu istaagay waa mahadsan yihiin inta kale inay kaalintooda ka qaataan الحمد لله رب العالمين قلبت waxaan dhex joognaa xaruntii gob taliskii gob ayaan dhex joognaa hadaad eegtaan halkan waxa yaala dhamaan qalabkii ay ku shaqeynaysa markii laga reebo dhowr baabuur oo shaqo ku jirta in badan ayaan waxaan maqalnay gudoomiyaha gob iyo gudoomiyaha ku xigeenka maamulka oo naga dalbaday danaha jaaliyadaha inaan qalabka meesha yaala aan mataanayno qalabka dhamaantood waa madi sidaan hore u sheegnay marka hadda galabta waxaan la kulannay tusaale wanaagsan baabuurkan u jeedaan oo ah baabuurkii baalihii oo Caterpillar 966 muddo hal sano ka badan shaqeynayay oo ay dhaqaalaha lagu gadana tabaruceen jaaliyadaha
North America iyo UK galabta halkaan uu naga fadhiyaa cilad farsamo ayuu u fadhiyaa shaqadii oo dhanna way istaagtay maxaa yeelay baal ciidii la buuray oo uu noo jabiyey D8ku baawartii wax ku rarar ma lahan haddii aan ciidii wax raraa jirin then baawar iska rogooyinka noo shaqayn mahayaan gareerkii ma shaqaynayo ruuladii ma shaqaynayso booyadihii ma shaqaynayaan shaqadii oo dhanba halkaas baawur oo naga halaysan ayay u istaagtay marka waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa walaalahayga jaaliyadaha dhammaan meel kasta ay joogaan Europe iyo North America in aan qalabkan aan mataanayno dhib badan uguma qaadan hadda qof jeebkiisa ka dareemay runtii nuguma jiro alxamdulilaahi rabbil caalamiin laakiin wax weyn oo la taaban karo oo ummadda halkan degan ay dareentay hadday noqoto dhinac dhaqaale iyo dhinac horumar bulsho iyo dhinac walbaba ayay runtii aad u dareemeen horumarka ay ku soo kordhisay mashruuca gob kala caynad weeyo midba nooc ku caanaheeye ciideen waa hodan cadceed uumi badano ad ku caaga gubiyootiyo qabow ad ka cabato xuduudaha ku togayo baraf ciidhan ma laho ciideen waa hodan cadceed uumi badano ad ku caaga gubiyootiyo qabow ad ka cabato xuduudaha ku togayo baraf ciidhan ma laho ciideen waa hodan calafnimuu diido cuni waaya mooye ciideen waa hodan ciideen